Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan halkan ka qaadanaynaa fariin yar oo aad u gaaban kuna saabsan tukashada salaada iyo sida aad u tukanaysid. Waxaad soo qaadanaysaa dahaarasho kaamil ah, waxaadna soo istaagaysaa meeshaad salaada ku tukan lahayd. Waxaad qaabilaysaa qiblada, waxaadna la imaanaysaa niyo dhammaystiran. Waxaad kor u qaadaysaa gacmahaaga adigoo la sameeya dhagahaaga ama garbahaaga. Waxaad xidhanaysaa salaada adigoo leh Allaahu Akbar. Waxaad gacmahaaga saaraysaa laabta, waxaad hoos marinaysaa gacantaada bidix, waxaadna kor soo marinaysaa gacantaada midig. Kabacdi waxaad furfuranaysaa salaadii ducaa istiftaax adigoo leh Subxaanaka Allaahumma wa bixamdika wa tabaaraka ismuka wa tacaalaa jadduka wa laa ilaaha khayruka. Waxaana jira ducooyin aad u badan oo Nabiga sallallahu calayhi wasallam ka sugan, midii kuu fudud unbaad akhrin kartaa. Intaa kabacdi waxaad isku diyaarinaysaa sidaad u furfuran lahayd suuratu Faatixa. waxaad leedahay acuudu billaahi min ashaydaani rajiim, bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, arraxmaani raxiim, maaliki yowmi ddiin, iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin, ihdina siraada almustaqiim, siraada aladiina ancamta calayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. kabacdi waxaad akhrinaysaa suurad alla suuradii kuu fudud ama aayaddii kuu fudud ee aad garanaysid. bismillaahi الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. kabacdina waxaad la imaanaysaa rukuuc adigoo leh Allaahu Akbar. waxaadna aadaysaa foorarsi adigoo gacmahaaga saaraya labadaada jilbood, dhabarkaagana simaya, farahaaga kala fogeynaya, hortaadana fiirinaya meeshaad ku sujuudi lahayd. waxaadna dhahaysaa Subxaana rabbiya alcadiim 3 jeer adigoo ku sugan rukuucda dhexdeeda. waxaad ka sara kacaysaa rukuucda adigoo farahaaga la sameeya dhagahaaga dhinacyadooda, samica allaahu liman xamdana leh. gacmahaaga waad saari kartaa laabta korkooda, waadna sii dayn kartaa. waxaadna leedahay rabbanaa walaka alxamd xamdan kathiiran dayiban mubaarakan fiih mil'a alardi wa mil'a asamaawaat wa mil'a maa baynahumaa wa mil'a maa shi'ta min shayin bacda. intaa kabacdi waxaad isku diyaarinaysaa inaad aado sujuud. waxaad dhahaysaa Allaahu Akbar, waxaadna ka sujuudaysaa 7 xubnood: wejiga, sanka oo hal isku ah, 2, 3 labadaada gacmood, 4, 5 labadaada jilbood, 6, 7 labadaada lugood farahooda hoose. sidaas baanad u sujuudaysaa sujuud kaamil ah adigoo leh Subxaana rabbiya alaclaa wa bixamdi 3 jeer. waxaad ka soo fadhiisanaysaa sujuudii, waxaadna leedahay rabbi ighfir lii warxamnii. markaad ataxiyaadka la timaadid kabacdi waxaad la imaanaysaa salaamo naqsi. sidaas baadna u tukanaysaa inta ka dhiman salaada.